Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowow kanaalka waa mar kale iyo muuqaal cusub oo markaasi ku saabsan moobilka iyo arrimihiisa. Muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa sida loo ogaado in moobilkaaga lagula isticmaalayo ama saan idhaahdee in gmailkaaga lagula isticmaalayo oo markaa in moobil kale la gashaday ama computer kale la gashaday ama markaa tracking lagu sameeyey sida loo ogaado ee loo checking gareeyo in kaliya uu kugu jiro gmailkaagu ayaynu muuqaalkan uga hadli doonaa. Okay, marka ugu horeysa moobiladu waa ay kala duwan yihiin. Moobil haddii aad sidato versionkiisu uu hooseeyo ama uu markaas 9 ka hooseeyo ama 8 ka hooseeyo, meelahan app drawerka ama qaybtan applicationada ayaad ka eegi doontaa meel Google settingka ay ku qoran tahay. Sidoo kale haddii aad sidato moobilada dambe Android 10 iyo 9 haddii aad sidato, qaybtan settingka ayaad tegi doontaa. Settingka marka aad tagto qaybtan ay ku qoran tahay Google, halka ay ku qoran tahay ayaad dooran doontaa. Google marka aad saa ugu dhufateed Google doorato muli lahayd iyo markaas akoonada kugu jira moobilkaaga. Sidoo kale qaybtan haddii aadan soo gelin waxaad aadi kartaa browserka aad haysato dhexdiisa, dan waxa aad markaasi qaybta URL-ka ku qori doontaa myaccounts.google.com ayaad ku qori doontaa, halkaasaad ka heli doontaa. Okay, qaybtani marka ay sidaa kugu soo baxdo, halkan waxa aan dooranayaa manage your account halka ku qoran tahay. Hore waxaan uga sameynaa casharran markaasi aad iyo aad u tiro badan oo ku saabsan Gmailka, qaabka loo sameeyo, qaabka loo adkeeyo, qaabka markaasi Gmail xafidan looga dhigo. Haddaba waxaad ku dhufanaysaa qaybtan manage your account ay ku qoran tahay. Halkan sarena waxa aad markaasi ka dooranaysaa Gmailada kugu jira moobilkaaga. Haddii markaa ay farabadan yihiin ama ay markaasi dhowr yihiin ka aad rabto inaad checking ku sameyso ayaad dooran doontaa. Okay, haddana waxaan dooranayaa kan, then manage your Google account baad ku dhufanaysaa. Marka qaybtan ku soo baxdo waxa aad dooran doontaa ama aad tagi doontaa qaybta security ay ku qoran tahay. Security marka aad ku qorto, halkan imika calaamadan ay saaran tahay ama calaamad layaabkaas ay saaran tahay security issues phone-ka soo helay, waxa weeye in ay dhibaato ka dhex jirto gudaha Gmailka ama uu markaasi wax tabanayo oo uu leeyahay adkee protect your account now by resolving this issue. Si aad arrimahan u xaliso, ilaali oo markaasi adkee xafid in cilad sheegaya halka ka ogaanaysa. Okay, qaybtan ugu hooseysa ayaad markaa iman doontaa, dhankana soo wadi doontaa. Then qaybtan ay ku qoran tahay your devices ama downloadka ay ku qoran tahay your devices ayaad dooran doontaa oo qaybtan xagga hoose ka qoran manage devices ay ku qoran tahay ayaad ku dhufan doontaa. Manage devices marka aad ku dhufato, halkan waxa uu kaaga soo saari doonaa device-yada ama mobile ama computer meeshii aad gelisay Gmailkaaga ayuu halkan kaaga soo saaraya. Hadda aniga waxa halkan uu ku jiraa Samsung Galaxy A20e oo moobilkan aan hadda haystaa iyo Windows desktop oo markaa meeshii laga isticmaalay iyo meeshii laga gelintaba oo kuu sheegay in Hargeysa Soomaaliya tahay kana Soomaaliya uu yahay markaas. Okay, more details baad ku dhufan doontaa si aad u sii ogaato ama aad u sii tixraacdo IP address-ka iyo markaas waqtigii la galay iyo inta baad ogaato. Okay, halkan waxa uu ka soo saaray waa Hargeysa waa Soomaaliya waa 5 July iyo 2 July labadaba la galay oo adiga arkaya. Marka si aad uga saarto moobilka la geliyay ama computerkaas la gashaday ama qofkaas uu isticmaalay, waad ka sign out garanaysaa. Halka ay ku qoran tahay sign out ayaad ku dhufan doontaa. Then qofka uu ka baxaya Gmailkii si automatically ay uga baxaya, mana isticmaali karo oo markaas ugu dambeynaysa. Hadda sign out baan odhanayaa, then sign out baan halkan ka sii dooran doonaa. Saasuu kaga baxay. Saas ayuu kaga baxay where you have signed out. Waad ka saartay weeye qaybta hoose u tagay maadaama markii hore ay isku dhan joogeen. Hadda waan ka sign out gareeyay. Sidoo kale haddii aad rabto in aad markaas si adkayso oo password ka bedesho ama two step verification aad ku xidho, qaybtan don't recognize a device ayaad ku dhufan doontaa. Dan qaybtan change password buu ku odhanaya, passwordka markaa bedeli doontaa. Passwordka ayaad bedeli doontaa. Hadda passwordka markaas aad ugu dhufto, dan wuxuu searching garanayaa Gmailkeygii qaybtii markaasi passwordka lagaga bedelayay. Waxa aad gelinaysaa marka hore passwordkii aad lahayd bad gelinaysaa. Okay, passwordkii aad lahayd bad gelinaysaa. Halkan waxaan markaasi passwordkeygii baan gelinayaa hore. Passwordkeygii hore baan gelinayaa. Dan next baan odhanayaa. Sorry. Dan next baan odhanayaa. Next markaan idhaahdo
waxa uu geenayaa in aan password cusub samaysto, new password iyo confirm new password. markaas inaan intaa u sameeyo ayuu markaa doonaya. Okay, password cusub baan hadda samaysanaya oo kii hore waan ka tuuraya, si markaa qofkaasi haddii is yidhaahdo ku noqo ama markii hore passwordka garanayay si uuna dib ugu noqonin, maadaama aan ka sign out gareeyey mobilkii ama computerkii ama device-ka ugu isticmaalayaan ka saarnay. halkan waxaan ku sameynaya markaa password aad iyo aad markaasi u adag oonu qofkii qiyaasi karin. waxaana ka mid tahay sababaha markaa aad ku adkeyn karto gmailkaaga si aan loo jabsanin ama aan lagaaga taraakin karin. qaababka loo adkeeya ayay kamid tahay inaad password aan la qiyaasi karin aad u samayso. Okay, qaybtan imika password adag baan ku sameynaya. haddana qaybtan aan ku laba celinayaa. dan marka aan saa u dhameeyo waxaan odhanayaa change password. Your password was changed. hadda saasaan ku bedelay passwordkaygii, saasaana markaa aan ugu amaan qabaa gmailkaygi maadaama aan ka saaray device-kii oo aan geliyay ama device-kii lagu jabsaday ama device-kii lagu xaday lagu isticmaalay, maadaama aan ka sign out gareeyay passwordkiina waan ka bedelay. qofkiina mar labaad dib uguma noqon karo, ama haddii is yidhaahdo taraakan gare ama jabsa haddii is yidhaahdo password adag ayaa ka hor imanaya, two step verification ayaa ka xidhan, lamber ayaa ka xidhan, codes ayaa ka xidhan. qofkii markaa way adag tahay si uu gmailkaaga ku jabsado. markaa saasaad u barogtan garan kartaa ama aad sheekin garan kartaa. halkan imika afartaasiba waa sax, waad arkaya waa nadiif wey, waxma qaba baalku. imika two step verification baa ku xidhan, third party access baa ku xidhan, sidoo kale waxaa ku xidhan markaasi security eventska waxa la yidhaahdo ayaa ku xidhan. intaaba qofkii ma dhaafi karo. sidoo kale lamber telefoonkaaga ku xidhan, recovery email baad u sameynaysaa. waxyaabahaasoo dhan casharaan baan kaga dhigay qaybta hoose markaa ku jira, ama playlistiga aad ka heli karto casharada ku saabsan oo idil imtixaanaha gmailka halkaa ayaad ka heli kartaa. qaabkaasaad markaa u checkin garanayso oo haddii cilad ama lagu taraakin gareeyey ama la jabsaday waxyaabahaas imanayaan, halkaasaad ka checkin garan kartaa ood ka adkeyn kartaa qofkiina aad gmailkii ka saari kartaa. halkan wuxuu inoo soo dhigay Samsung Galaxy A20 keliya inuu hadda device-kani ku jiro, kii kale waan ka tuuray. saasaad markaasi ku ogaan kartaa in lagula isticmaalayo inaad keligaa isticmaalayso, labadaba aad ku kala ogaan kartaa. muuqaalkan intaasaan kusoo afmeerayaa. haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, subscribe-na ku qabo si uu dad fara badan usii gaadho. aad iyo aad baad umahadsan tahay. tan iyo muuqaalka dambe intaan iskaga iman doono, nabadey.